كلنتون صاحب يا مدغول بو دوليدا كجوجتان سو دواada waxaan wadaa war culus kashifaad ceeb badan ayaa banaanka keeni doona si degan muuqaalka u daawo like-na inoo saar dowladda federaalka Soomaaliya maanta waxa ay shaaca ka qaaday in markab dagaal oo ay dowladda Turkiga leedahay uu yimid dekedda Muqdisho markabkaasna uu ilaalin doono badda Soomaaliya ma sha Allah war aad weyn oo farxad badan weeyaan laakiin waa been wax ka jira markabka sida ay dowladdu hadalka u dhigtay warbaahinta gudaha Soomaaliya ay u akhrinayeen iyo markabka sidoo yahay waa kaf iyo kala dheer bal marka hore sida ay dowladdu hadalka u dhigtay ila maraakiibta dagaalka dowladda Turkiga ayaa bilaabay in ay ka howlgalaan biyaha badda Soomaaliya kadib markii uu bilowday dhaqangalka heshiiska difaaca iyo dhaqaalaha oo ay dhawaan kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga halka ku jooji markabkan uma imaan bad Soomaaliyeed inuu ilaaliyo ee waa markab socdaal ah oo dabaaldeg dowladda Turkiga ay wado oo loogu dabaaldegayo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dowladdaas iyo Japan wuxuu marayaa horena u soo maray wadamo fara badan dhoolatuskaasna in wadan walba lagu soo bandhigo ayuu qorshuhu markabkii ay dowladda loogu sheegtay inuu baddeena ilaalinayo Djibouti ayuu joogay 3 maalin ka hor 2 maalin kadib wuxuu aadayaa Sacuudiga Indonesia ayuu gudbi doonaa Bangladesh ayuu tagayaa Malaysia ayuu tagi doonaa South Korea ayuu tagayaa hadduu annaga inuu baddeena ilaaliyo u yimid wadamadaas muxuu ka doonayaa haddaba waa dabaaldeg dowladda Japan iyo Turkiga xiriir diblomaasiyadeed u dhaxeeya sanad guuradii 134 ee ka soo wareegtay ayaa loogu talagalay waxaan ku tusi doonaa caddayn degdeg ila daawo faalla kooban oo caddayn wadata oo aan ka diyaariyay dadka aan tusi doono wax walba oo cad oo muuqda oo caddayn kale u baahnay ila daawo warka idinku daari maayo wax cad oo muuqda oo banaanka yaala ayaan hortiina keenayaa si fiican warbixintan u arag waa sanad guuradii 134 ee xiriirka diblomaasi ee Japan iyo Turkiga ayuu Turkiga u dabaaldegaya wuxuu marayaa dekado fara badan oo ay u arkaan waqtiga inay dhoolatus ku sameyn karaan dekadaha ay u tagayo Turkiga oo ku dabaaldegayo ayay dekedeena ka mid tahay wuxuu tagi doonaa wadamada aad u jeedaan magaca sanad guurada iyo xuskana waa ka aan hadda falaarta aan ku hayo marka Turkiga u dabaaldegaya sanad guuradii ka soo wareegtay xiriirka diblomaasi ee Japan iyo waliba iyo Turkiga ayay madaxtooyada fila Soomaaliya waxay noo sheegtay inay madaxweynuhu uu ka qayb galay munaasabad lagu dhameystirayo iskaashiga difaaca badda Soomaaliya marka wax badan aad ogaataan aan rabnaa si fiican barnaamijka u daawo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud koofidiisa magaca ku qoran arag koofida madaxweynaha maxaa ku qoran si fiican u arag koofida madaxweynaha maxaa ku qoran magaca soo jeeda magaca koofida ku qoran waa kana fiiri waa magaca koofida ku qoran waa ka waxa weeye waa sanad guurada dabaaldeg ah ayuu markabkan u yimid deked ay ka mid tahay dekedda Soomaaliya magaalada Muqdisho wadamada dabaaldega lagu qaban doono waxa ka mid ah magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia Djibouti ayaa lagu qabtay oo waatana Djibouti waa taas markabkan Djibouti uu soo maray sanad guuradii baa lagu xusay Djibouti ee Soomaaliya Muqdisho yimid sanad guuradii baa lagu xusay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka qayb galay munaasabada dabaaldega maalinta diblomaasiyadeed ee Japan iyo Turkiga marka in la yiraahdo madaxweynihii baa iskaashi laba dowladood ka qayb galay annagoo u jeedna warqadaas maxay ka turjumaysaa anigu aamin ku dhimaayo bishan 4/2024 ayay dowladda Turkiga waxay soo bandhigtay dabaaldega iyo waliba halka ay tagi doonaan oo ay ku cadeynayaan warbixinta hortiina taala bal fiiri wadamada ay tagi doonaan waxa kamid ah Sacuudiga Djibouti horay u tageen waxay kale tagi doonaan Bangladesh waxay tagi doonaan Malaysia waxay tagi doonaan Thailand waxay tagi doonaan China waxay tagi doonaan South Korea waxay tagi doonaan Japan waxay